ninka ardayda Cabdiraxmaan Baleela inaan silada casar ciidanka booliisku way soo qabteen waanu xidhan yahay waxaan lagu eedeynayaa dambi ciqaabeed oo galay oo ah inuu dambi qaranimada Soomaaliland lid ku ah inuu galay iyo aflagaadooyin buu geystay dambigaas ku xidhan yahay sharciga waa loo sameeyay qof kasta dambi gala waa la qabanayaa haduu loo ajnabi noqdo haduu Soomaaliland noqdo qofkii dambi gala waa la qabanayaa ninkaas wuu xidhan yahay kiiskiisa waa la baarayaa wixii ka soo baxana waxaan u gudbin doonaa hadii Ilaahay ka dhigo maxkamadda iyo xeelaanta awoodda leh ciidanka booliisku ninkaas waxba uma geysan waxna lama dilinin isagu ma ku andacoonay cidisha ma jirto booliisku waa ka wax ilaaliya waa ka dadka nafta iyo maalka ilaaliya cidda booliisku ma dilo isaga shaqada loo igmada ah dadka badbaadiyaan in xuquuqdiisa ilaaliyaan waxaan leeyahay waxa uu leeyahay waa la dilay wana la fadhi oo xukuma jiraan walaal dadkaasi dad aan waxba ogeyn way waxa way dadkaas waa dad waxba ogeyn war qofka haduu dambi galo dambigu waxa gudub kasta loo geystay sharciga ninkan dambi uu ka galay qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu geystay aflagaadooyin buu geystay sharcigeenu wuxuu dhigayaa in la qabto oo la xidho kiiskiisa waa la baarayaa si degdeg ah insha Allah waxa loo gudbin doonaa maxkamadda iyo xeelaanta awoodda leh